wafdigii hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cabdi oo baryahanba ku sugnaa gobolada bariga Soomaaliland ayaa saaka waxa ay socdaal ku soo mareen jiidda hore ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wafdiga uu horkacay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Mudane Cali Maxamed Waran Cabdi oo ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda hawlaha guud, wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada, wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada qaranka iyo ciidamada booliska Soomaaliland. wasiirku waxa uu warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiidda hore ciidanka qaranka. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan guutada 14aad ee jiidda hore ee qaranka uu u jeediyay kaalinta ay ugu jiraan qarannimada Soomaaliland iyo sida ay lagu maarmaanka u tahay in mar walba wadankooda ay difaacaan. wafdigu uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa ciidanka ku sugan jiidda hore waxay gaarsiiyeen deeq isugu jirta raashin, timir. wafdigu uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cabdi ayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan jiidda hore dalka Soomaaliland raashin noocyo kala duwan ah kuwaas oo ay kamid ahaayeen timir, gogol iyo waliba xoolo ciidankaasi la gaarsiiyay. wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa halkaasi ka jeediyay hadal dhiirigelina oo ku dhiirigelinaya ciidamada qaranka Soomaaliland difaaca wadankooda ay ugu jiraan. ilaahay waxaan ka baryayaa inaan wax dhibaato idin la kulmin. midna waxaan idin leeyahay haddii madaxweynuhu ku ballan qaaday haddaanu wasaaradiina hay Jamhuuriyadda Soomaaliland naga go'an wax alla ma xaqurayaanu ka fuuleelina wax alla waxay doontaa noqoto ee aanu mar walba niyada ku haynayna ee aanu mar walba waxa na soo gala aanu la barbar taagnaanayna inay yihiin kuwiina naftii horeyaasha ah ayaan idinku ballan qaadaynaa. wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu fariin u diray ciidamada qaranka isagoo u ballan qaaday in saraakiisha ciidamada iyo guud ahaanba ciidamada qaranka Soomaaliland caruurtooda ay waxbarashada bilaash ku baran doonaan ilaa heer jaamacadeed. annagu waxaanu idinka ballan qaadaynaa ardaygiina inaan ka dhashaan ardaya waxbarashada inaanu bilaash uga dhigno. hadduu dugsi sare ka baxo anagu waxaan ballan qaadayaa nin kasta hadda shamaal dhooto nin baa igu yimi sarkaal ah oo igu yiri inankaygi baa dugsi sare ka baxay igu dir jaamacad ii keen baan ku yiri ballan waxaan ku qaadayaa arday kasta oo dhalay sarkaal ama askari ama dable ciidanka qaranku inaan waxbarashada bilaash uga dhigno ayaan ballan ku qaadayaa meel kasta uu joogo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Mudane Cali Maxamed Waran Cabdi ayaa waxa uu ka waramay faa'iidada ay askarinimadu leedahay iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in qof waliba wadankiisa uu difaacdo. marka hore inaan soo gaarsiino salaan aanu ka sidno madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo imka dalka safar uga maqan inaanu salaantiisa iyo mahadnaqiisa idin soo gaarsiino iyadoo ka turjumaysa hawlaha qiimaha leh iyo waajibaadka culus ee idin saaran sida uga soo baxdeen. waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay inaanu saaka idin soo salaanno oo aanu aragno quruxda halkan ka muuqata iyo qiimaha ciidanka qaranka ee aaga hore uu leeyahay. waxaanu jecelahay inaanu idin soo gudbinno sida aanu raalli uga nahay hawlaha ummaddiinna iyo qarankiinna iyo dawladdiinna u haysaan. waxaad tihiin xaydaabkii dalka Soomaaliland. waxaa ka soo baxdeen hawlo fara badan iyo dhib fara badan oo ay idinku qaadatay inaad dalka Soomaaliland halkii ugu dambaysay imika ay ka harsantahay waxoogaa yaroo kiiloomitiraada oo insha Allahu aan jecelahay inaynu nabad iyo wanaag aynu ku gaadhno xuduud aynu leenahay Soomaaliya oo ah dal aynu walaalanahay badanaan maray. runtii waxa uu soo hoyseen qarankan sharaf fara badan iyo qiimo badan. waxaan idinku bogaadinayaa
in qiimaha iyo qaayaha aad leedihiin aad ku socotaan ku seexataan ku soo toostaan ayaan jeclahay aad iyo aadna waa idinka mahad celinaynaa waxaanu idinku muxuu ahay bogaadinaynaa geesinimo dulqaad iyo mas-uuliyadda ballaaran idin saaran inaad sideeda ugu faantaan